Waa maxay graphic design? Graphic design waa farshaxanka naqshadeynta muuqaalka si loo gudbiyo fariin ujeeddo leh. Waa xirfad isku daraysa qoraal, midabyo iyo sawirro si loo abuuro naqshado soo jiidasho leh oo saameyn yeesha. Graphic design waxay muhiim u tahay qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan ku aragnaa buugaagta, boorarka, website-yada, calaamadaha ganacsiga, iyo xayeysiisyada. Intaas waxaa dheer, waxaa lagu sameeyaa animations iyo naqshadaha apps-ka iyo websites-ka aan maalin waliba isticmaalno. Waxaa jira noocyo badan oo graphic design ah, sida logo design oo calaamado u abuura ganacsiyada, motion graphics oo ah sawirro dhaqdhaqaaqaya, iyo UI ama UX design oo ah naqshadeynta apps iyo websites si loo fududeeyo isticmaalka. Haddii aad xiisaynayso hal-abuur ama naqshadeynta muuqaalada, graphic design waa xirfad fursad badan leh, waana mid fudud inaad bilowdo. Haddaba daawade, nagu soo biir oo ka mid noqo bulshooyinka nagu xiran. Waxaynu kaa dhigi doonaa xirfadle buuxiya baahida suuqa ee graphic design-ka.